deegaanka xallin waxa uu hodan ku yahay ama alla uu ku minaystay biyo macaan oo intii halkani ay magaalada noqon ay si weyn ugu tiirsanaayeen xoolo dhaqatada deegaanka laakiin tan iyo asaaskii magaaladan waxaa bulshada deegaankani ay si weyn isu bedelayeen noloshoodii oo waxay u dhaqaaqeen falashada dalagyada kala duwan ee beeraha deegaanka xallin inuu wax soo saarka dhanka dalagyada beeraha uu ku wacan yahay waxa uu ku tusinaysaa in dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya ay halkan ka hirgelisay warshada sonkorta samaysa oo qasabka sonkorta laga sameeyay laga beerayay deegaanka xallin ee degmada Taleex ee gobolka Sool marka sonkor baa lagu beeray wax soo saarkeedu aad buu badnaa waad arki kartaan hadda say u kala dhigdhigan tahay baraagihii ma garanaysaa matooradii xidhii wax lagu shubi jiray wixii lagu dab baa lagu shidi jiray marka maalintii ilaa waxay soo saari jirtay de waa wax gacan laga shaqeynayaa konton kiish bay soo saari jirtay haddii la sii fidiyo oo maaragtay de wax aan gacanta laga shaqeyn warshada gacanta laga shaqeyn la keeno 200 kiish bay soo saari lahayd xataa maalintii berdey 200 kiish 300 kiish bay soo saari lahayd waqtigan safarka ku tagaya xallin waxaa laga dareemayay in magaaladani ay ka socoto shaqo xoogan oo dhanka beeraha waxaa isdaba marayay gaadiid badan oo qudaarta xallin ka soo gooda gaarsiinaya dhammaan deegaanada kale ee Soomaalidu ay degto basasha ayaa ahay dalagga ugu badan ee halkan ka soo gaayay xilligan safarka shaqo ku tagnay deegaanka xallin ee degmada Taleex ee gobolka Sool basasha tan markii la beerayo kiila la beeraa kiiladaas waxay noqotaa markay si wanaagsan u baxdo ilaa 200 kiish ayay noqotaa hadeerna waxa laga gooyay ilaa 8 baa go'ay hadeerna wad arkaysaan way kala dambaysaa hadii saan u soo godo ilaa 300 kiish bay noqonaysaa hadii la haydo saan u malaynayno aan ku rajayna dalagadan basasha xagga loo iibgeeyaa basasha waa aad iyo aad bay hay'adda qaali u tahay kiiladii waxaana la ka siiyaa 26 hadeerna 30 bayna si agaagaynaysaa ilaa xamar bay soconaysaa ilaa xamar bay gelaysaa laakiin anaga marka hore ilaa gaalkacyaan la ka geebsaday xamar baa gaalkacyaan si u soo wareejis aad iyo aad baa cagaarku ugu badan yahay dhidhana yaanyadu aad bay uga baxdaa basbaasku waa ka baxaa kabsarada intaas waa dhirta cagaarka geed midhoodada aad iyo aad bay uga baxdaa saytuun baa ka baxa camba ka baxa camba kama bixi babay baa ka baxa babaygu waa ka baxa liintu way ka baxdaa aad iyo aad bay u baxday hadeerna babaygu 2 sano hadeer waa la maalaya waa go'ay isduwaha wasaaradda deegaanka beeraha ee gobolka Sool oo aan kula kulanay deegaanka xallin ayaa sheegay in geedka garawaanka la yiraahdo uu dib weyn ku hayo beeralayda deegaanka xallin iyo deegaanada kale ee gobolka Sool sida deegaanka dhumay iyo deegaano kale ee hoostaga degmada Taleex ee gobolka Sool halkan waa deegaanka xallin waa beerihii bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan salaamayaa qolada saxaafadda halkan ay nagu soo booqdeen maanta oo Jimco ah ay nagala soo qayb qaateen deegaankan maanta ka warbixintiisa iyo sida maanta geedkan garanwaaga aad aragtaan dhibaatada uu noogu hayo geedkan dhibaato ayuu noogu hayaa waa aragtaan gaadiidkii beeraha digada u dhigayay ama khudaarta ka qaadayay meeluu maruu leeyahay geeda kanina waa meesha ugu badan deegaanka Puntland waa meesha ugu badan ee dhibaatada uu ku hayo tuuladan beeraleyda xallin oo ka tirsan degmada Taleex waad aragtaan afarta koonaba way iga beegan yahay dhirtan iga dambaysa maaha beerihii waa garanwaagii tayga horeysana maaha beerihii waa garanwaagii waxaan hadda taaganahay ceelkii kalcad baan taagnahay wadadii beeraha halbowlaha u ahayd wasiirka deegaanka iyo beeraha iyo cimilada isbedelka wuu nagala qayb qaatay wuuna arkay ilaa iyo dhumay iyo xalinba wuu arkay geedkan dhibaatada ku hayo waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda ama maamulka Puntland geedka inay nagala qayb qaataan oo wixii allaale wixii aanu ku gaamin lahayn ay noo keenaan annagu hadda waxaan samaynaa meeshii aanu beer ka dhiganayno baanu faashi qaadanaa waanu jirnaa inta yar baan dhulka kala baxnaa isla markaanu sanad beerno isla 6 bilood oo dambe ba isaga meeshii buu xidhaa marka waxaanu leenahay geedkaas waxa nagala qabto waxa jira qalab hadda la adeegsado oo matooro wasaaraddu bixiso oo mishiimo wax jarjara oo wax yar naafeeya waxaan rabnaa mishiimadaasna in loo keeno marka saasaanu jecelnahay wax qabadkaas aanu doonaynaa waxaanu anagu dadka beeraleyda caanka ku ah wax soo saarka Maxamed Saciid Qoslaaye warbaahinta dawladda Puntland garow